asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkani waa daalacan miidiya. daawadayaal meel kasoo joogtiin waxaan idin leenahay kulan wanaagsan. daawadayaal markii la kulan wanaagsan xubinteena ugu horeysa waxaynu kusoo qaadanayna hogaamiyaasha dalalka Soomaaliya, Eritrea, Itoobiya oo kulan saddex geesood ah ku yeelanaya Asmara. ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed Cali waxa uu bartiisa Twitter ka soo dhigay qoraal uu ku sheegay inay isagii madaxweynaha Soomaaliya kulan wanaagsan xubinteena koowaad waxaynu kusoo qaadanaynaa Eritrea Asmara si ay uga wada xaajoodaan xoojinta xiriirka guud ee qaaradda Afrika gaar ahaan Geeska Afrika. waxaan kula kulmi doonaa walaalahayga hogaamiyaasha Eritrea iyo Soomaaliya madaxweyne Isiyaas Afwerki, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaana kala xaajoon doonaa qodobo badan ayuu ra-iisul wasaare Abiy ku muujiyay qoraalka in magaalada qaaliga ee soo dhaweynta Asmara ay farxad maqsuudo ka dhigi doonto joogitaankeena. saddexda hogaamiye waxay Asmara ku yeelan doonaan wadaxaajood looga hadli doono qadiyad badan oo aad u ballaaran. lama shaacin xilliga rasmiga uu dhacayo kulankaas soo socda iyo nuxurka qodobada xasaasiga ay ka hadli doonaan marka ay kulanka ku yeeshaan Asmara. dowladaha Soomaaliya, Eritrea iyo Itoobiya waxay sanadkii hore ku dhawaaqeen isbahaysi taageerada dhinacyada ammaanka, dhaqaalaha iyo isdhexgalka, wuxuuna isbahaysigaas abuuray xiisad diblomaasiyadeed iyo in dalalka kale gobolka ay su'aal ka keenaan waxa uu ka leeyahay isbahaysigaasi. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo dhowaan wareysi qaas ah siiyay wargeyska Sharq al-Awsat waxa uu gaashaan ku dhuftay inuu isbahaysigaasi laga firdhisayo urur goboleedka IGAD ee ay ku midaysan dalalka Soomaaliya, Djibouti, Itoobiya, Eritrea, Kenya, Suudaan, South Suudaan iyo Uganda. ku jirnaa shirka ka furmaya Asmara, ra-iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya ayaa gaaray magaaladaasi iyadoo madaxweyne Farmaajo la filayo inuu saakito u duulo magaaladaasi. xubinta labaad aynu kusoo qaadanayno warkayga waxa uu ku saabsan yahay duqeyn lala eegtay safaaradda Mareykanka ee magaalada Baghdad. safaaradda Mareykanka ku taala deegaanka aadka loo ilaaliyo aagga cagaaran ee Green Zone ee magaalada Baghdad ayaa la sheegay in xalay la duqeeyay. 5 gantaal ayaa la sheegay inay ku dhaceen jiinka webiga u dhow dhismaha safaaraddaasi iyadoo aan la soo sheegin waxyaalo ah sida lagu xusay qoraal ka soo baxay taliska militariga Mareykanka u qaabilsan howlgallada wadajirka. wakaaladda wararka FB ayaa iyadana ka soo xigtay ilaa dhinaca dowladda ammaanka oo sheegay in 3 gantaal toos ugu habsadeen dhismaha safaaradda iyadoo mid ka mid ah gantaaladaasna uu ku dhacay cafeteria laga cunteeyo ku taala ama ku dhex taala dhismaha safaaraddaasi. waa duqeyntii saddexaad ee bishan oo keliya lala beegso safaaraddaasi, inkastoo duqeyntii xalay ay tii ugu horeysay si toos ah loola eegto dhismaha safaaradda. ma kala cadaan kooxaha sida rasmiga ugu dambeeya duqeymahaas lala beegsaday dhismaha safaaradda, balse waxay duqeymahan bilowdeen kadib markii ay Mareykanka duqeyn ku dileen taliyihii ciidanka guutada Qudus ee ilaalada gacanka Iiraan Generaal Qaasim Soleimani. dhinaca kale wasaaraha Ciraaq Caadil Cabdulmahdi waxa uu cambaariyay duqeyntii xalay loo geystay safaaradda Mareykanka. afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka wuxuu isna ugu baaqay dowladda Ciraaq inay badbaadiyaan safaaraddii dhammaan xarumaha diblomaasiyadda Mareykanka ee ka howlgala guud ahaan dalka Ciraaq. daawadayaal xubnahan ku talgalnay saakit wareegta waxaad kala socoteen daalacan miidiya.